sidoo kale waxa helay His Excellency Deputy Prime Minister Mahdi Mohamed Guleed 97 cod marka isaga ugu gudbay kursiga musharaxnimada tirsigiisu ahaa 239 kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo alaaba halkan aad ka daawataan qodobada aad daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan waxa kamid ah xildhibaanadii ugu horeeyay golaha shacabka oo maanta lagu doortay magaalada Muqdisho Mahdi Mohamed Guleed Khadar oo noqday musharaxii ugu horeeyay nabad iyo nolol ee lagu doorto magaalada Muqdisho haddaba maxay kaga dhigan tahay nabad iyo nolol guusha maanta ay ka soo hoyisay doorashada golaha shacabka xog faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan ayaanu daawadayaal idin soo gudbin doonaa musharaxiinta mucaaradka oo ku dhacay shirqool ay u maleegtay xisbiga nabad iyo nolol ee uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Rooble oo fariin culus u diray madaxda maamul goboleedyada kadib doorashadii gobolada waqooyi ee maanta ka dhacday magaalada Muqdisho xildhibaan Mahad Salaad oo mar kale eedeen u jeediyay ahlu sunna iyo siyaasiyiinta taageersan iyo sidoo kale daawadayaal muuqaalka waxaad ku daawan doontaan generaalka hogaaminayo TPLF oo ka jawaabay hanjawaadii ka timid Abiy Ahmed qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelino aynu ku horeynay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Mohamed Guleed Khadar ayaa maanta ku guuleystay kursigii ugu horeeyay ee golaha shacabka 11aad kadib doorasho ka dhacday caasimadda Soomaaliya Mahdi Guleed ayaa ka adkaaday Marwo Mushtaaq Ibrahim Yuusuf waxaana uu helay codad 97 cod halka musharaxii la tartamaysay ay heshay 3 cod oo kaliya sidoo kale waxaa xumaaday hal cod natiijada soo baxday iyo guusha Mahdi Mohamed Guleed Khadar ayaa ahayd mid hore loo saadaalinayay oo la filayay maadaama isagu uu keensaday gabadha la tartamaysay waxaan ku dhawaaqi doonaa hadda natiijada rasmiga ah ee musharaxiintu ay kala heleen wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal waxay heshay Marwo Mushtaaq Ibrahim Yuusuf 3 cod sidoo kale waxa helay His Excellency Deputy Prime Minister Mahdi Mohamed Guleed 97 cod marka isaga ugu gudbay kursiga musharaxnimada tirsigiisu ahaa 239 oo ah musharax xubinta ku guuleysatay kursigaasi Mahdi Guleed oo hadlay kadib guusha markii lagu dhawaaqay ayaa u mahad celiyay ergadii wax dooranaysay iyo guddiga doorashada gobolada waqooyi iyo waliba sidoo kale dhanka heer federaal Mahdi Guleed ayaa dhanka kala tilmaamay in doorashada golaha shacabka ee kuraasta gobolada waqooyi ee dhiman si degdega lagu soo gabagabeen doono toddobaadyada nagu soo aadan alxamdulilaahi rabbil caalamiin bisinka ilaahay baynu ku bilaabaynaa kuna bilownay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta oo ay tahay 1 November 2021 si rasmi ah inoogu bilowday ku bilaabantay labada kursi ee 239 oo aan ku tartamaynay aniga iyo xildhibaan Biixi Iimaanna kursiga labaad waxaan leeyahay guulba inoo bilaabantay inaynu maanta furno doorashada golaha shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa ilaahay idamkiisa inay hadda Soomaaliland ahaan waa noo bilaabantay maanta waanu wadi doonaa usbuucyada soo socda ilaa 44 kursi ee haray ay dhamaadaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliland ay ama gobolada waqooyi ay soo gabagaboobaan sidoo kale waxaan rajaynayaa inay bilaabmi doonaan doorashada golaha shacabka ee xildhibaanada ka imanaya dawlad goboleedyada kale iyo sidoo kale banaadiriga oo gobolka banaadir ka imanaya si ay noogu soo gabagabowdo doorashada golaha shacabka waxaan u hambalyeeynaa amaanayaana diyaar garowga iyo dadaalka ay muujiyeen guddiga doorashada Somaliland iyo guddiga doorashada heer federaal oo run ahaantii si wada jira uga shaqeeyay diyaarinta goobtan iyo in doorashadu maanta si nabad ah oo fiican oo hufan inoogu dhacdo waxaan amaanayaa booliiska oo xarunta dugsiga tababarka booliiska Kahiya Akademiyada aynu ku qabsanay doorashadii inooguna dhici doonto halkan haddii ilaahay idamkiisa uu idmo waxaan aad u bogaadinayaa amaanayaana doorka shariifka ah ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo si hagar la'aan ah noogu gacan siiyay haddaan nahay
xildhibaanada Somaliland u tartamaya iyo bahda Somaliland guud ahaanba in doorashadu qabsoonto shalayna aad ogeedeen kormeer inuu ku yimid diyaarintii goobtanna gacan weyn ka gaystay had iyo jeerna kala shaqeeya guddiga doorashada Somaliland iyo heer federaal inay taabo gasho oo ay hirgasho doorashada Somaliland waxaan leeyahay hambalyo guul baa inoo bilaabantay taariikhi ah hal shay baan idin sheegayaa inta aanan xilka qaban ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxaan ka shaqayn jiray doorashooyinka wadamo fara badanna aan u tagay goob jooga ahaan 17 sanadood 2001 ilaa 2017 doorashooyinkan ka shaqaynay doorashadu waa tubta kaliya ee lagu kala nabadgeli karayo waa tubta kaliya ee awoodda dawladnimo ee sharciga ah ama lagu cusboonaysiin karo ama lagu wareejin karo aynu ku dadaalno doorashadeenu inay inoo qabsoonto xilliga inoo haray kooban ay ku dhacdo ay naga dhamaato ugu dambeyn dhammaanteenba bishan December ee nagu soo fool leh si loogu dareero doorashada madaxtooyada Ilaahay idamkiisa waa mahadsantihiin waxaan leeyahay hambalyo waxaan amaanayaa bahda saxaafadda doorka ay ka qaateen run ahaantii booliiska iyo shacweynaha Soomaaliyeed dhamaantood waxa kaloon bogaadinayaa amaanayaan kursiga labaad ayaa waxaa ku guuleystay Biixi Iimaan Cige oo mar kale dib loogu doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Biixi oo hore ugu fadhiyay kursigan ayaa ka adkaaday Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil gudoomiyaha guddiga doorashada ee gobolada waqooyi ee Somaliland Khadar Xariir Xuseen oo shaaciyay natiijada ayaa sheegay in Biixi Iimaan Cige uu helay 91 cod halka Cabdiraxmaan Xasanna uu isna keensaday 9 cod sidoo kale waxaa halaabay 1 cod ammaanka goobta ay doorashada ka dhacday ayaa ahayd mid aad loo adkeeyay waxaana la geeyay goobta ciidan gaar ah oo ka tirsan kuwa booliiska ee dawladda federaalka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka duwan midda aqalka sare waxaana xildhibaanada cusub kursi kasta soo dooranaya ilaa iyo 101 ergo doorashada gobolada waqooyi ayaa markale la sii ambaqaadaya iyadoo maalmaha soo socdana la gudageli doono doorashada xubnaha kale ee Somaliland sidoo kale waxaa la filayaa in doorashada dhankooda ay ka bilaabaan maamul goboleedyada waxaana ugu horeeya Koonfur Galbeed oo ku qabanayso magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe xildhibaanka labaad ee maanta lagu doortay kursiga labaad Biixi Iimaan Cige ayaana mahadcelin iyo boogaadinba u jeediyay guddiga doorashooyinka ilaahay subxaanahu wa ta'ala inagu simay in doorashadii golaha shacabku si habsami leh oo rasmi ah ay noogu bilaabanto maanta oo taariikhdu tahay 1 bishii 11aad 2021 waxaan aad iyo aad sidoo kale u bogaadinayaa uguna mahadcelinayaa hay'adaha ammaanka oo booliisku ugu horeeyo oo sugay amniga doorashada si habsami leh inoogu agaasimay doorashadan waxaan aad iyo aad sidoo kale u bogaadinayaa una hambalyeeynaya labada heer guddiga doorasho oo doorasho runtii hufan inoo agaasimay inoona hirgeliyay waxaan sidoo kale aan ilaawi karin oo aan u hambalyeynayaa ama bogaadinayaa una mahadnaqayaa ergadii codkoodana siisay na dooratay oo nagu aaminay mas'uuliyad culus madaxweynaha baarlamaanka 11aad ee 4 sano ee soo socda waxa maanta inoo bilaabmay doorashadii golaha shacabka waxaynu ogeyn in doorashadii guriga sare inteedii badnayd soo dhamaatay waxaan rajaynayaa sidoo kale in deegaanada kalena doorashadu ka bilaabmi doonto si dadka Soomaaliyeed ay fursad ugu helaan madax u adeegta madaxweynaha soo socda si looga baxo xilliga kala guurka oo moodo inuu xoogaa daba dheeraado aad iyo aad bay muhiim u tahay in hay'adaha dawladdu adeegooda iyo waajibaadkooda dadka u qabtaan taasina muhiim bay ka dhigaysaa doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo guud ahaanna dalka oo dhan ay ka dhacdo waa idin mahadnaqayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin saxaafaddana aad iyo aad baan ugu dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa war ka soo saaray doorashadii golaha shacabka ee maanta ka bilaabatay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha ayaa hambalyo u diray ugu horeyntii ku-xigeenkiisa Mahdi Maxamed Guuleed iyo Biixi Iimaan Cige oo ku soo baxay labadii kursi ee maanta doorashadooda lagu qabtay caasimadda Rooble ayaa sidoo kale sheegay inuu ka faraxsan yahay in la bilaabo doorashada golaha shacabka isagoo xubnaha la doortayna u rajeeyay inuu alle la garab galo mas'uuliyadooda sidoo kale Rooble ayaa intaasi kadib fariin culus u diray hogaamiyaasha maamul goboleedyada waxaana uu ka dalbaday inay gudagalaan doorashada golaha shacabka waxa uu yiri waxaan dawlad goboleedyada ka codsanayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilaabaan doorashada golaha shacabka aniga oo rajeynayo in howlaha doorashooyinka guul ay nagu soo dhamaadaan
ayuu qoraalkiisa sii raaciyey ra-iisul wasaare Rooble. doorashada golaha shacabka ayaa marar badan dib uga dhacday in la qabto waqtigii loogu talagalay, hase yeeshee maanta ayay si rasmi uga bilaabatay magaalada Muqdisho. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa weerar afka ku qaaday siyaasiyiinta ku kala aragti duwan xiisadda ka dhaxayso ahlu sunna wal jamaaca iyo maamulka Galmudug. Mahad Salaad ayaa waxa uu siyaasiyiinta ugu baaqay inay faraha kala baxaan xiisadda ka taagan Galmudug, isla markaana aan la garab siinin hoggaanka ahlu sunna oo uu sheegay inay ku soo duuleen nidaam dhisan. nimankan qaylinayo walaalayaalow, haddii ay fiican yihiin wadaadadu in qori loo dhiibo xukun meel ka jira afduubtaan, horta deegaanadiina ka soo sameeya, kadibna Guriceel iyo Dhuusamareeb ka hirgeliya, ayuu qoraal uu soo saaray ku yidhi Mahad Salaad. dhanka kale waxa uu yidhi walaalayaalow, fidnaha noo keenina, dadkan deegaankiisa waa joogaan, iyaga ayaa yaqaana maslaxadooda, iyagana horumarkooda ka shaqeeya, dhibkiina iyo weliba shiddadiina naga daaya, haddii siyaasad dadku isku hayaan meeshay jiraan aada, ayuu yidhi. Mahad Salaad ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjoodo in wadahadal lala galo hoggaanka ahlu sunna, iyadoo la rumaysan yahay in degmada Guriceel ay uga baxeen si miiska isfahamka wax loogu dhammeeyo. hadalkan ayaa ku soo aadayaa xilli labada dhinac uu guddi ka dhex wado waanwaan lagu rabo in lagu soo afjaro xiisadda maalmo ka hor isku rogtay dagaal uu ka dhashay khasaaro dad badan ay ku geeriyoodeen. qaybihii dambe ee warkeenna ayaanu soo gaarnay daawadayaal. midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa u muuqdaa inay ku dhaceen siyaasad ahaan khiyaano weyn, iyadoo la soo sheegayo in nabad iyo nolol istaraatiijiyad ay diyaarsatay ay ugu hambaliyadireen. doorashada golaha shacabka ee maanta bilaabatay ayaa ah mid isha lagu wada hayay habka mucaaradka iyo muxaafidka ay u kala lahaan doonaan kuraasta 275 mudane. qoraallo ay soo saareen xubnaha ayay mareegtadooda Facebookga ugu sheegeen inay soo dhaweynayaan xubnaha la doortay maanta oo uu ka mid yahay Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo iminka ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya. Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ku biiray xildhibaanada ugu horeeya ee baarlamaanka 11aad. xasan cali khayre oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta ayaana hambaliyo u diray xildhibaanada labada ah ee maanta lagu doortay magaalada Muqdisho. xasan cali khayre ayaa yidhi waxaan ugu hambaliyeynayaa xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed iyo xildhibaan Biixi Iimaan Cige ka mid noqoshada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib doorashadii saaka ka dhacday magaalada Muqdisho. waxaan Allah ugu rajaynayaa buu yidhi xildhibaanada la doortay inuu u fududeeyo mas'uuliyadda culus oo ay u qaadeen ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale waxa uu hambaliyeeyay Cabdulqaadir Cosoble Cali iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo dhammaantood hambaliyo u diray xubnaha maanta la doortay. ugu dambayntiina daawadayaal, generaalka hogaaminayo dagaalyahanada gobolka Tigray ayaa sheegay in aysan jirin wax wada hadal ah oo ay la yeelanayaan dowladda Itoobiya. waxa uu sheegay in dagaalka uu haatan marayo meel gebageba ah. dhanka kale xafiiska warfaafinta ee dowladda Itoobiya waxa uu ku eedeeyay ciidamada Tigray in ay tiro dad ah ku dileen magaalada Kombolcha. mana jirto ilo madax bannaan oo xaqiijin karto eedeymaha, balse fallaagada TPLF ayaa hore u beenisay inay bartilmaameedsadeen dad rayida. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa taageerayaashiisa ku booriyey inay adeegsadaan hub kasta oo ay haystaan si ay u joojiyaan horu socodka ay wadaan ciidamada fallaagada ee Tigrayga. intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo inta aanu daawadayaal dib ugu kulmi doonno muuqaalo kale, waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.